Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda islaamka waan salaamaya meel kastoo ay joogaan. Mashquulkaas ka badan hadba sidii wax loo haleelo weeyaan. Waxaan ka sheekeyn doonaa iska sheeko xariiradkii ciyaalnimadii ah oo English ah. Waxaan isku dayi doonaa inaan turjuno haddaan wax qaladnana kolley kasnaga ma aha, bini aadan baanu nahay. haddaan wax qaldana hala isaxo, intii karaankaygana waan isku dayi doonaa inaan turjumo insha allah. waxa weeye wax ka sheekeynayaa beeroole ah, nin beeroola ah ayuu ka sheekeynayaa. The farmer's hate. Farmer's waxa weeye farmer waa beeroole. The farmer's s baa sii raacaysa marka wuxuu leeyahay farmer's hate. Buulkii beeroolaha ama beeroolaha buulkiisii. Once mar there was waxaa jiray a farmer beeroole. He isagu lived in wuxuu ku noolaa one room hal qol of his small height buulkiisa yara, with his wife xaaskiisa and her mother iyo hooyadeed and his three small children iyo 3 ciyaala ayuu la noolaa. He living in wuxuu ku noolaa in one room hal qol of his small height buulkiisa yar, buul yar ah, with waxaa la noolaa his wife xaaskiisaan ah, her mother hooyadeed macnihiisu dohdii, and his 3 small children iyo 3 ciyaala oo yar yar. He wuxuu u shaqeyn jiray worked waa past way sheegaysaa, worked ed baa raacday. Worked wuxuu u shaqeyn jiray hard si adag on his farm beertiis all day, maalintii oo dhanba si adag ayuu u shaqeyn jiray. When markii he coming uu imi home gurigiisa at night habeenkii, the noise shanqadh noise waxaa la yidhaha noise shanqadha in his house gurigiisa shanqadh ayaa ka jirtay. Drive taas ku kaxaynaysay him isaga crazy waali. His wife xaaskiisu talked way kala hadashay to him isaga shanqadha iyada bay kala hadashay. His mother-in-law waxaa la yidhahdaa sodohdiina talked to him waa ay kala hadashay. His 3 small children saddexdiisii ciyaal ee yaryaraana talked to him waa ay kala hadleen, and iyo they iyagu all gebigooda talked waxay kala hadleen at the same time isla waqti ayay kala hadleen, waqti isla mar keliya ay kala wada hadleen. The poor farmer beeroolihii faqiirka ahaa put wuxuu dhigay his hand gacantiisa over dusha his ear dhagihiisa and cried uuna ooyey. Please wuxuu ku ooyey please idinkoo raali quiet xasilooni macnihiis dejiya please ayuu kusoo gooyey. But laakiin they iyagu wanti way aadeen macnihi waa wax macnihi tagis wax shay go markay past noqoto waa wanti aadeen right sida saxda aan taking wayna kala hadleen si sax ayay kala hadleen. At last kama dambeyntii in desperation waxaa la yidhahdaa go-aan qaadasho ama garanaysa. He isagu asked wuxuu weydiiyey the advice talo of wise man waxaa la yidhahdaa ninka caaqilka, ninka maskaxda badan leh, ninka fikirka badan leh, ninka taliya la yidhahdaa moogti wise man. What maxaa shall I do aan kuu qaban doonaa ama shall iyo will waa past way sheegaya maxaan kuu qaban doonaa. He asked ayuu weydiiyey. The noise shanqadh baa is drive me crazy ii kaxaynaysa waali. Shanqadh ayaa si waaliya ii kaxaynaysa. Will you follow me advice will you adigu will waa past way sheegaysaa. Will you follow ma raaci doontaa my advice taladayda waa question waa su'aal. The wise man asked ninkii caaqilka ahaa ayaa weydiiyey. Yes said the farmer macnihi haa ayuu yidhi ninkii beeroolihii. Good hagaag the wise man said ninkii caaqilkii baa yidhi good hagaag way fiican tahay. Go home tag gurigaaga and bring can one cow hal sac into the house guriga with you adigu. A cow sac in the house ma sac guriga, cried the farmer beeroolihii ayaa ku ooyey ma sac baa guriga. Cow sac in gudaha the house guriga gudihiisa ayaan keenaa sac. Cried macnihi oohin, carried waa past cried past way sheegaysaa. The farmer beeroolihii ayaa ku ooyey. How could that helping how sidee could that taasi helping iyo caawinaysaa. Well hagaag if you don't want my advice haddii aanad doonin taladayda. If haddii you adigu don't want aanad doonin
my advice taladayda the wise man ninka caaqilka said ayaa yiri ninka caaqilka baa yiri so sadarteed the farmer beerolihii went to aaday home gurigi aan proud waxay tahay bringi oo bastia proud oo keenay the cow sac into the house guriga ayuu keenay a cow sac in house gudaha masac ayaa la soo gelinayaa guriga said the housewife said his wife xaaskiisii ayaa tiri a cow in the house masac ayaa guriga said his mother-in-law hooyadii ee sodohdii ayaa tiri a cow sac in the house guriga said the children caruurtiina way tiri and they iyagu all gebi ahaantood said waxay yidhahdeen the ones mar ayay wada yidhahdeen masac ayaa guriga la keenaya mawaacidii baan usoo gaabinay mawcida said waxaa yidhi the cow saci bewilder lala wareersanaa ama lala dhakafaarsanaa by the noise shanqadhiisa the poor man ninkii faqiirka just hall waxa uu qabtay his heart madaxiisii quiet xasilooni please quiet all of you gabigiina xasilooni he cried uu ku ooyay xasilooni idinkoo raali ayuu ku ooyay the next day maalintii xigtay he went uu aaday back dib ayuu u aaday the wise man ninkii caaqilkii well hagaag said the wise man ninkii caaqilka yidhi hagaag how is it siduu ah siday ahayd wars ka xun dan ever sidoo hore way ka xumayd said the farmer beerolihii ayaa yidhi while intii ama goortii they talk ay ka hadlayeen the cow moon cidii saca is trouble idis waxay ahayd trouble mid aad u daran good hagaag said the wise man ninka caaqilka ayaa yidhi you have a dog ma haysataa a question yes ha said the farmer beerolihii ayaa yidhi two laba of them iyaga ah macnii laba ayda ah ayaan haystaa good hagaag said the wise man ninka caaqilka yidhi tonight caawa bring can the dogs ayda into the house guriga two sidoo kale sidii oo kale dee sidii hore oo kale waa inaad si aad saca u keentay waa inaad u keenta haddana ayda tonight caawa bring can the dogs ay into the house guriga two sidii oo kale bring the dog in the house shouted waxa ku bring can the dogs ayda into the house gurigan keena ay guriga la keenaya ay waa macni la yaab ay sheegaysaa sidii wax qof la yaab waxaan sameeyay oo kale shouted to farmer beerolihii ayaa ku qayliyay well hagaag if you don't want my advice haddii aan doonin taladayda said the farmer said the wise man ninka caaqilka yidhi haddii aan doonin taladayda soo sadarteed the farmer beerolihii wanti uu aaday home gurigiisa and brought wuxuuna keenay two dogs laba ay into the house gurigii two sidoo kale sidii uu saca u keenay ayuu u keenay insha Allah hadduu Allah ogolaado casharka xiga ayuu halkaa inooga sii socon doona hadduu Allah ogolaado dhammaan ummadda islaamka waan salaamayaa subscribe hadaad channelka cusub tahay like na ilaawin commentigan wixii qalad iyo wixii sax iyo wixii talaab ay gula soo gudbi way commentiga iyo subscribe-ka iyo like waxay kamid yihiin dhiirigelin qofka dhiirigelinayso inuu qofku dadaal sameeyo wax ka cashar kala soo dhigo waqti siiyo waan salaamaya dhammaan ummadda islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.